فاضي سكولكي إن الركتو dadkeen soo noqon maxaad u weeyday waan xanuunsanay dadkeen soo wada noqon waa la dhigtaa waxaan doonaa markaa inaad timaad waan xanuunsanay ma imanayo saad xanuunsanaysaa waa la guday Allah faafi soo noqonay iskuulkeeni waxbarashadii way noo furmaysaa waxaan doonaynaa inaan qof walba nooga sheekeeyo wixii ku soo qaatay fasax أنا فرحت من كاسون قبل. نحو أردت وسوى الحرطي ينتهي فيهما ولما يسوي حنا نحرب. نتي فيه ولا بدو حلوين. موتين وحنين بهاي فقرة. ما إلا قرني يكون يلا تناظر إمك أن شوفنا هي ولي حد واحد حساسية صعبة. ويو يمكن وشاعر وحالة توجيه ويلا عبارة ما كان يلا مثل يا الله وبالله. سيتي. في عنا ولا الله وناكسنها. هاي حالة ضابط الورن ريركي ورن سديتين وناكسنتين هي ريركي سديتين وفي عين هاي ولا البريها سوق يرحم هاي ده waxaan ganacsanay 10 cashuuraan haysta هاي ده waxay ahayd inaan hablaha day shaqadaydu ahayd هاي 200 oo layna waa leeysiinay inaan taqolkan gudo هاي seero subagana waa leey shubay wixii walaalkumaan soo dhawaan هاي qarniga 22aad baa laga tagay shaqada iska jooji biyana dogo aniga inaan tahay iskoolka dhiganayso iskoolka ka baxday caafimaad darro ay qaaday reerkayga ma shaqayso si alla saaraad ma garanayo shaqada ka bax waxaan u malaynayaa in ay tahay qolooyinkan in lacagaha la siiyo ee dumarkiina leeyniidi ka daaya ma ihi ma ina diinaha iska daa shaqada ku jirto waa shaqo qaldan ka bax wax kale oo dhaamay ilaahay weydiiso nabadgelyo ka bixi hablaha daa shaqada ka gabar inantaadu aniga inanteedu caafimaad bahayd waa midida weeyaan aan la maydhin aan meel la geynin ee sidaa ayaad ku jarjartay ee jirkeygii isku yaalay ilaahay sameeyay aad inba meel ku nabtay ka baxay waxa waxaad ku samaysay maxaad u doonaysay hooyada qolaantaas laakiin ka qoon baad timid bal waxaad ku samaysay qablaha annaga warqaadii ma jafaysaa ana ma alaabtan bayinaayo maaha baya waxa weeye ka bax aniga deedo shaqada hadii ayada wax ku soo siiyay naarad بريان محمد حنون بدن بان dareemayaa ma dhakhtarka geeyay hooyo macaan xanuunsan soo ku arkaya bariyahan oo dhan waad bugtaa xumad baa ku haysa dhakhtarkan ku geyn insha Allah ilaahay ha ku caafiyo السلام عليكم وعليكم السلام hooyo wanaagsan fiican soo dhaw waxa waxaad qabataa nanta yar bay qabataa nanta yar bidhawad waan guday saamaan ugu yeeray biraha baas dameeyay waxa ku shaqo qaaday mooyee nanta yar way bixtaa caafimaad darro ku dhacay waxna ma cunto waxna ma qabto iskoolka ka baxday dawadiga way xaaladda waxa waxaan sidii goob caafimaad la beeso hooyo meel ugu inuu iska daayo gudniinka hablaha may way moogeen may wala iska daayo waxa haystay hooyo inuu wax tarayo nanta waxaan saaday wuxuu qabo waxba soo maqlan wax baan yeelay wadiga nanta yaartay mar walba xaaladda xamadeed baa haysa barod way qortaa waxba ma qaban karto waxna ma cunto barashana kuma soo dhawaan xilad baa haysay nanta wal cabirina hooyo meel ugu in la iska daayo gudniinkii hablaha maadaama xanuun iyo laga qaadayo agfasha laga qaadayo sidoo kale xaaladu istaagayso sidoo kale xiluu tolo mustaqbal markay guursato waxaa fusalaha laga isku furanka dhibaatooyin fara badan leedahay la garanayo caruurtu toban bay ahayd 8 ciyaal iyo 2 caruur labada iyadii odayga aniga suuq xumaa dhacday waxaan soo weyn jiray aniga oo 5 qof 6 qof soo sameeyay anoo joog burcada sida iyo joog subabo meeda intaasan iska quudinay aniga caruurtayda iyo odayga iguba bariyaha suuq xumaa igu dhacday naag xuma wuxuu sameeyay sameecada iga dish wallahi garan ma sameecada way xuntahay hadday wax السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدات في عنا يوم بريها كذا حالك وي والله حاولت وعكرت هو يحن دونه هنا وتكون خيره واحد هاي هذه شيء سلامتي بابا فكريه سلامتي واحد هاي حبلها سبعين سيبوديسي وانا هاي ما تسمى ذي marka waxa ku waday wacyi gelin inaad joojiso gudniin kan soo in la joojiyay inaad dhibaatada hablaha u keenayso ma ogi hooyaanigu haddaba dhibaatada hablaha u keenaysa gudniinkii waa la joojiyay wax maxaa la dhahaayay hablaha laga gudiyo wax xaaraan ku yaali ma jirto marka waxa kugula talinayaa
maadaama habeenkii dhibaato weyn ay qabaan inaad ka joojiso hooyo waxaan malaynaya dadkan wax lasoo siiyey baa dadba tahay maybe lacagaha maya kusoo gureen niyan iyo cilmi ahaan midna kuma jirto ina maxaa ragaa ina la gudo hooyo soo ku musheeqda walba loo dhiibanaya habeegeena samaynan taas waxay ahayd casri jaahil imika dhibaato habluhu kala kulmaan agfashan bay kala kulmaan caadadoo yaraatay kala kulmaan dhibaato fara badan bay kala kulmaan waxaan doonayaa inaad naga qaadato dadkana in laga cibeyso waxna aad tiriso dee waxa la yidhi biyo kaa badan iyo cod kaa badan way waanfiyaan kol hadday ay diintuna ayna sheegin dee dhaqankiina intay caafimaadkiina waan iska ogolaa bulshooy gudniinkan habluhu wuxuu saameeyey waxbarashadii hablaha sidaa awgeed aynu joojino gudniinka hablaha